maanta Shiinaha wuxuu ka mid yahay dalalka ugu awoodda badan. Ma aamini kartaa 40 sano ka hor Shiinuhu wuxuu la daalaa-dhacayay gaajo saboolnimo aad u sarreysa. Balse maanta wuxuu ka mid yahay dalalka ugu awoodda badan dhan walba marka laga eego. Saboolnimada iyo gaajada ayaa dhulka la galay oo saxiiray Shiinaha. Laakiin se muddo aad u yar misaba aad u kooban gudaheeda dalkani waxa uu markaasi yeeshay awood aad u sarreysa. Awooddaasi oo galgashay caalamka. heer sarana waxay ka gaareen dhan walbo haddii aan ka fiirino dhanka infrastructure dhaqaalaha iyo wax soo saarka 1978 Shiinaha wuxuu caalamka ku soo kordhinayay GDP ah 2%. maanta Shiinaha wuxuu 18% GDP ah ku soo kordhiyaa caalamka. xadka saboolnimada ee dalka Shiinaha ayaa ka yar 1%. wuxuuna noqday dalka labaad ee ugu dakhliga badan adduunka. waa super power xilligani la joogo maanta. laakiin siday ku dhacday in dalkani uu 40 sano gudaheeda uu ku noqdo mid awooddaasi oo dhami kulmiyay. waqti aad u hore Shiinuhu awood waa u lahaa. wuxuu ahaa dalkii soo saaray agab inta badan hadda aad loo isticmaalo. Shiinuhu wuxuu ahaa dalkii soo saaray daabacaadda, warqadaha, rasaasta iyo waxyaabo kale aad u fara badan. waxay ahaayeen dad u kala gooya caalamka oo dhamay oo aad u wareega. Shiinuhu waxa la dhihi jiray bartamaha boqortooyada darisna la ah India. waa bartamaha dhaqaalaha adduunka. balse sanadkii 1800 wax walba ayaa isbedelay. galbeedka ayaa waxa uu bilaaway in uu markaasi gilgilo caalamka. waxay keeneen isbedel aad u xoogan. Yurub iyo Mareykanka ayaa saray u qaadeen adeegsiga sayniska oo ay markaasi ku soo saareen mashiinada, hubka, tareenada, baabuurta, diyaaradaha, bambooyinka, warshadaha. magaalooyinka ayay casri ka dhigeen. awood waxay u yeesheen inay ku kala foofaan caalamka oo ay kala qabsadaan meel walba. Shiinaha ayaa Britain isku dhiibay markii albaabkooda ay soo garaaceen, maadaama Britain ay awood sare lahaayeen, hubkoodana uu ka xoog badnaa hubka uu Shiinahu haystay. taasina waxay dhalisay Hong Kong. dabcan waxaan ka hadli haynaa xilligii ay bilaawatay arrimihii gumaystaha. Shiinaha ayaa waxaa soo dul istaagay wadamo aad u fara badan, balse Britain ayaa gacanta ku dhigtay. Hong Kong ayaana sidaasi ku dhalatay. gabgab badan kadib Shiinaha ayaa waxaa gacanta ku dhigay ninkii ka bedeli lahaa saboolnimada oo ka saari lahaa gaajada oo keeni lahaa isbedel aad u xoogan. Deng Xiaoping ayaa xilka qabtay December 1978 wuxuuna ka tagay saameyn togan dhanka dhaqaalaha. xilligiisi wuxuu fasaxay shirkadaha aan dawliga ahayn inay ka howlgalaan dalka. xitaa kuwa dibadaha waa u fasaxay. la soco madaxweynahani hortiisa dowladda Shiinaha waxay markaasi mamnuucday shirkad dibad ka timid. balse ninkani Deng waxa uu fasaxay shirkadaha in ay maalgeliyaan dalkiisa. Deng waxa uu aaminsanaa habka kaliya ee looga bixi karo dhibaatadani waa in sare loo qaado dhaqaalaha oo la kobciyo dhaqaalaha si xawli ahna 40 sano wuxuu kaga dhigay wadankaasi mid awood leh. dowladdii ka horeysay Deng waxay markaasi soo saartay arrinkii ahaa capitalism. shacabka ayaa waxaa laga wada qaatay dhulalkoodii. dowladda ayaana gacanta ku haysay. shacabka xornimo ma aysan dareemeyn. balse Deng waqtigiisa waxa uu ugu horeyn xooga saaray, maadaama uu isbedel dooni hayo dhanka dhaqaalaha inuu dalkani ku sameeyo, waxa uu xooga saaray arrimaha beeraha. marka waxa uu go'aansaday in shacabka uu siiyo awood ay iyaga markaasi ku mulkiyaan dhulka muddo waxa loo yaqaano lease, si ay markaasi u beeraan waxa ay dooni hayaan sida ay rabaan, xornimona ay dareemaan, si uu motivationkooda dhiirigelin uga dhigo wax badan ay u soo saaraan. dowladdiisa ayaa waxa uu ku amray in ay ka iibsadaan beeralayda ilaa iyo xad. marka hore waxaa dhici jirtay in dowladda ay wada qaadato beeralayda waxa ay soo saaraan, balse isaga waxa uu amar ku bixiyay in dowladda ay ka iibsato shacabka ilaa iyo xad. wixii soo haro qofka beeralayda ah iyo sida uu rabo, faa'iidada uu rabo intuu saarto ayuu ka gadayaa qofka uu doonayo. taasi ayaa waxay sare u qaaday dhiirigelinta beeralayda. dadaal iyo xoog ayay saareen. tabtaasina waxaa sare ugu kacay soo saaridda beeraha ee dalkaasi. isla sidaasi qorshihiisa labaad waxa uu markaas xooga saaray warshadaha wax soo saara. Deng ayaa waxa uu mudnaan siiyay in uu tixgeliyo qof walba
iyo sida uu rabo. Deng ayaa wuxuu ka bedelay sharciga in dadka ay markaasi fasax u yeeshaan waqtiga ay shaqaynayaan, iyaga ay markaasi go'aansadaan waxa ay soo saarayaan. Warshadaha intooda badan ayaa waxay noqdeen kuwa markaasi dhiirigashan, dadkina wax soo saarka ayay saray u qaadeen. Deng taasi waxay ka caawisay motivation factor. Dowladdii hore waxay gacanta ku haysay wax walba, iyada ayaa maamuleysay. Dadku waxay dareemayeen cabur iyo xakameyn aad ah, balse isaga waxa uu ka soo saaray saboolnimada malaayiin qof, maadaama uu shaqo abuur aad u fara badan sameeyay. Dadkina caburkii iyo culayskii ka kacay, iyagina ay dareemeen inay xor yihiin. Talaabada xigta ee uu adeegsada Deng waxa waaye in dadka uu saray u qaado aqoontooda. Waxbarashada ayuu xooga saaray, wuxuuna qasab ka dhigay in canug walba oo Shiineys ah iskuul la geeyo, waxna uu barto. Waxbarashadana waxa uu ka dhigay bilaash oo lacag cid laga qaadayo ma jirin. taasina waxay saray u qaaday aqoonta dadka uu markaasi maamulayay. Beeraha iyo waxbarashada marka laga soo tago, shayga kale ee muhiimka ah ee u baahan in xooga la saaro wadan walba haddii la doonayo in horumar la gaaro, dabcan Deng waxa uu xooga saaray talaabadiisa xigtay oo ka dhigay in dadka uu markaasi baro xirfadaha iyo farsamada. waa aragteen caalamka hadda wuxuu ku soo arursaday in xirfad iyo farsamo bes lagu meel maro. Deng xilligaasi ayuu xooga saaray in dadka ay bartaan xirfadaha iyo farsamooyinka gacanta ay bartaan. Shiineysku maanta waad aragteen, Afrika waxay ku hayaan maanta shaqooyinka ay ka qabteen Afrika waad aragteen. dhinac walba oo caalamka waxay rabaan inay sidaas gacanta ugu dhigaan, iyagoo adeegsanaya xirfadaha iyo farsamooyinka ay barteen. agabka iyo waxyaabaha ay soo saaraan waa talaabada xigtay uu markaasi Deng u fasaxay dalkiisa. Talaabadiisa xigtay waxa uu xooga saaray ganacsiyada yaryar iyo shirkadaha yaryar ee soo saara waxyaabaha. mashruuc loo yaqaan TVE ayuu xooga saaray, taasi oo saray u qaaday in dadka ay wax soo saarkooda badiyaan, ay helaan dhaqaale kaga yimaada dhanka dawladda oo ay markaasi saray u qaadi karaan wax soo saarkooda. qorshahaasi waxaa ka dhashay shirkado aad u waaweyn sida Huawei. hadda shirkadaasi waxay ku dhalatay oo ay ku imaatay fikradani ah in uu TVEska xooga saaro madaxweyne Deng. shirkad walba, kuwa soo saara dharka, kuwa soo saara kabaha, kuwa soo saara electronics, kuwa soo saara agabyada kala duwan ee la adeegsada, ayuu wuxuu sameeyay masrax markaasi iyaga siiya mudnaan, taasi oo ay dawladdu ku samaysay maalgelin si iyaga wax soo saarkooda ay saray ugu qaadaan. tusaale, magaalada Wenzhou ee dalka Shiinaha, halkani shacabka ayaa intay is arursadeen waxa ay bilaabeen shirkad soo saarta kabaha. maanta shirkadaasi waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee caalamka geeya kabaha. bilowgii sagaashameydii TVE ayaa shaqaaleysiisay 100 milyan oo qof ee dalkaasi. waxaa sare u kacay hab noolaanshihii bulshada, waxaana isbedelay dhaqdhaqaaqii suuqyada. dabcan wadan walbo, magaalo walbo waxay ku tiirsan tahay oo ay ku nooshahay wax soo galka shacabkeeda. TVEska waxay awood siisa markaasi in shacabka ay noloshoodu bedelaan. dhinac walbo, magaalo walbo, tuulo walbo, xaafad walbo oo dalka Shiinaha ayuu ka hirgeliyay TVE. caadiyan wadamada qaar waxaa si weyn farqi ugu kala dhaxeeya miyiga iyo magaalada, balse isaga waxa uu soo gaabiyay oo uu jaray farqigii u dhaxeeyay miyiga iyo magaalada, taasi oo ka wada dhigtay dadka in ay lahaadaan dhaqaale aad u fiican oo markaasi wareega. 20% Shiinaha dhaqaalaha waxay ka sameynayeen qorshahani ee TVE-ga. warshadaha iyo kambaniyada iyo shirkadaha yaryar ee dadka ay lahaayeen uu markaasi u furay masrax wanaagsan oo ay markaasi ku maalgeliyaan dawladda. TVE-ga ayaa 20% dhaqaalaha laga sameynayay. malaayiin shaqo ayaa la abuuray. taasina waxaa fududeeyay arrinkii koowaad ee uu markaasi xooga saaray ee ahayd waxbarashada, iyo arrinkii kale oo uu markaasi xooga saaray ee dadka in uu baro farsamada iyo xirfadaha. taasi ayaa waxay sahashay in shaqada ay soo fakato, shaqo abuur
ay u sameeyaan dadkooda 1980kii Deng waxa uu markaasi baasmariyay sharci u ogolaanayay in uu u fududeeyo sharciyeynta businessyada misaba ganacsiyada in uu markaasi sahal ka dhigo fududeynta sharciyeynta ganacsiyada waxay fududeysay in kambaniyo badan oo waaweyn sida Nike, Apple, Volkswagen in ay ka furaan xarumo dalka Shiinaha oo ay markaasi ku soo saaraan agabkooda 1980kii maalgashiga dibadda ee Shiinaha waxa uu ahaa eber $6 ayuu ahaa balse sanadkii 2021kii waxa uu kor u dhaafayay $333 bilyan marka laga soo tago arrimahani kulli oo uu xooga saaray dawladda waxay saray u qaaday dhammaan oo ay kobac ku samaysay oo ay hirgelisay xoogana saartay mudnaana siisay dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka trainka ayaa la dhisay wadooyinka magaalada ayaa la hirgeliyay dawladda waxay si ballaaran dhaqaale u gelisay cilmi baaritaanada sayniska Deng wuxuu barnaamij tababar u fidiyay in ka badan 800,000 oo cilmi baariyaal ah waxaa loo igmaday waaxyo khaas ah oo kala duwan soo saarka tamarta kombiyuutarada agabka fiirada space technology physics iyo genetics ayaa xoog la saaray oo mudnaan la siiyay maanta dawladda Shiinaha waxa ay ku maalgelisaa $500,000 oo bilyan ay ku maalgelisaa cilmi baarista Deng waxa la dhihi karaa dabcan waa tusaale aad u wanaagsan oo qofka hadii mar ay ka go'an tahay in uu isbedel sameeyo dabcan waa uu hirgelin karaa balse qof walba kuma faraxsaneen xilliga uu isaga xilka haayay waxa loo arkayay in uu yahay kaligii taliye isla waqtigiisii waxyaabo kale oo fara badan oo dhaceen way jireen balse barnaamijkeena maanta waxaan diiradda ku saaraynay isbedelka iyo sida uu markaasi dalkani ku noqday superpower dalka labaad ee ugu awoodda sareeya Deng waqtigiisii waxa dhacay weerarkii Tiananmen Square isla isbedelkani uu keenay waxa uu saameyn ku yeeshay deegaanka haddii dhinac kale laga fiiriyo waayo warshadaha iyo baabuurta iyo teknolojiga iyo waxyaabaha uu soo saaray uu u horseeday dalkiisa waxay saameyn ku reebtay deegaanka hadda madaxweynaha Shiinaha ee Xi Jinping ayaa waxa uu dhar ku maray in dalka Shiinaha uu ka dhigi doono meesha lagu gaaro 2049 in uu noqdo dalka ugu awoodda badan caalamka uguna saameynta ballaaran adduunka halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena qodobka xiga iyo insha Allah waqti kale